ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa kumaadooska danab oo kaashanaya kuwa maamulka Jubbaland ayaa waxa ay wali howlgal ka dhanaa dagaalamayaasha ururka al-shabaab ay ka wadaan deegaanka ka tirsan duleedka fog ee Kudhaa halkaas oo dhawaan uu ka dhacay dagaal xooggan u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo sidoo kale dagaalamayaasha ururka al-shabaab howlgalladii ugu dambeeyay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya kuwa maamulka Jubbaland ay ka sameeyay deegaanadaas ayaa waxa ay ka heleen 24 meydad ah oo dagaalamayaasha ururka al-shabaab halkaas kaga carareen waxay sidoo kale ciidamadu ay gacanta ku soo dhigeen laba xubnood oo dhaawac ah kuwaas oo ku dhulmaalaysanayay dhulka hawdka ee Kudhaa sidoo kale ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya kuwa maamulka Jubbaland ay intii howlgalkaasi ku guda jireen waxa ay ku dileen 4 xubnood oo kamid ah dagaalamayaasha ururka al-shabaab kuwaas oo ku dhulmaalaysanayay dhulka hawdka dhanka kale ciidamada dawladda iyo kuwa maamulka Jubbaland ayaa ku guda jira raadinta horjooga Fuad Shongale oo la xaqiijiyay inuu dhaawac dhinaca madaxa uu qabo kaas oo ka soo gaaray dagaalkii ciidamada dawladda iyo dagaalamayaasha ururka al-shabaab ku dhaxmaray deegaanka Kudhaa horjoogahan oo muddo ka tirsanaa dagaalamayaasha ururka al-shabaab ayaa la wariyay inuu qayb ka ahaa dagaalkaasi iyadoo ciidamada dawladda ay iminka ku raad joogaan howlgalladan isdaba jooga ayaa qayb ka ah dadaalada joogtada ee lagu xaqiijinayo amniga laguna ciribtirayo dagaalamayaasha al-shabaab ee ku dhumaalaysanaya deegaanada miyiga kadib markii la dilay inta badan maleeshiyaadkii ku soo duulay deegaanka Kudhaa